xukuumadda Somaliland miyay ku fashilantay xal u helidda iyo soo afjaridda colaadii galbeedka sidoo kale wasiir Cabdalla Sandheere ma wuxuu mari doonaa wadada barasaab xodaygii xilka ku waayay xiisadda awdal qodobadaasi iyo kuwa kale waxaynu ku eegi doonaa warbixin kooban aynu kaga hadlayno colaadda gobolka Salal kadib go'aanadii isku hor imanayay ee xukuumadda madaxweyne Cirro ka qaadatay buuggii xeer ciise ee salka u ahaa xiisadda awdal iyo Salal waxaa colaad toos ah kala qaatay beeraha walaalaha ah ee gobolkaasi wada dega falal amni darro isugu jira dil afduub iyo dagaal toos ah ayaa gobolkaasi ka dhacay xukuumaddu waxay bilowday dadaallo arrintaasi xal loogu raadinayo xubno isugu jira wasiirro uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheere ayaa booqashooyin kala dambeeyay ku tagay gobolada awdal iyo Salal sidoo kale waxa isna mar tagay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland kulamo iyo shirar isdaba jooga ayaa xubnaha matalayay dawladda ee uu horkacayay Cabdalla Sandheere wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ay la galeen madax dhaqameedka beelaha walaalaha ah ee colaadu dhex taalo muddo kadib wasiirka arrimaha guduhu wuxuu dhawaan sheegay in la soo xidhay nabadii gobolada Salal iyo awdal saacado kadib markii uu soo baxay warka uu wasiirku ka sheegay warbaahinta waxa dagaal foolka fool ah uu ka dhex qarxay maleeshiya beeladyo kasoo kala jeeda labada beelood ee wada dega gobolada awdal iyo Salal tallaabadani waxay muujisay fashil ku yimi dadaaladii xukuumaddu ugu jirtay inay soo xidho nabadda awdal iyo Salal inaan waxba ka jirin warka uu warbaahinta ka sheegay wasiirka arrimaha guduhu oo u muuqday qowda maqashii waxna uu qaban sidoo kale waxa hadlay madax dhaqameedka gobolka awdal oo sheegay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheere maadaama uu bixiyo xogo aan ahayn kuwa xaqiiqo ah waa sida ay sheegeen ugu dambeyn si guud waxay u muuqataa in xukuumaddu ku fashilantay inay xal waara u hesho colaadda ka dhex aloosan beelaha galbeedka Somaliland wada dega gaar ahaan wasiir Cabdalla Sandheere oo isagu dhowr safar oo isxigxigay oo goboladaasi uu ku tagay kala soo laabtay natiijo la'aan colaaduna sideedii weli u socoto sidoo kalena mid ka mid ah beelahaasi sheegeen in wasiir Cabdalle ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen qodobadaasi oo la isku daray waxay sababi karaan in wasiir Cabdalla Sandheere faraha ka laabto inuu xal u helo colaadda halkaasi ka aloosan dhanka madaxweyne Cirro laba midun ayaa miiska u saaran in awdal iyo Salal uu ka doorto saaxiibkii Sandheere oo kursiga ku sii hayo iyo in wasiir Cabdalle uu mariyo wadadii uu maray barasaab xodaygii xilka ku waayay xiisadda awdal ka aloosan Axmed Dollar TV